إن صادقوا وما سنتها وجوه وحين كسرام يا بعد صحافة صومالي بمانتي بسلام تنسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحا إنا كهضوا على كتير قوة عن هشيسكي ما يكتب النسوس وقال الجلد بي بلوان ودش عالم كجوب أي كاهي إنا كسو قالوا أيها سبا هذا الذي نمان يعني متقن غير بلوان أي كوها الليل إنا كهضنا أو أيضا كسو قالوا واحبا أقول رأي غير بلوان هشيسكا وحوي هشيس دا كوريني dadka Soomaalida inay heshiiyaan oo walaaloobaan oo nabad ku joogaan waa wax wanaagsan hadii la helayo hase ahaatee heshiis baa ka horreeyay badan beesha caalamku ay mas'uul ka ahayd bishii May 12 ay heshiiska lagu gaaray beesha caalamka waxay ka ahayd goobjoog bay ka ahayd waxaa jibiyay nimanka la Calikaas iyo reer Puntland baa jibiyay intii ka dambeysay weerar bay 10 jeer soo qaadeen oo ay jilmidu ku soo qaadeen inta nabad saxiixdeen nabadaas oo awaran jiisi ee aan lillahi ahayn jeer jilmidu markay aamineen ayay waxay ku soo qaadeen weerar dabarjibi ah ilaahay wuxuu yiri isha kan daba bil aadanka arka uurka ninka dabana aniga arkoon waxbayga qarsoonay waxa weeye waa khiyaano qaran oo dad bil aadan la galo khiyaanada ugu xunyeeyay wuxuu yiri waxaan marka aan leeyahay taa kaga jawaabaya horta wuxuu yiri agooro jilda marka uu lagu sii daayo waa weyn sayntay ruuxaan hasho markii gudnata gafuurka looga dhistaa agooro dawadaadi la aragbaaliye hashana caana kuma lihid horta nabadgelyada Puntland iyo bahalkaliya heshiiska Puntland horay baan u soo aragnay madaxweynahooda ugu weyn ku xiga wasiirka difaaca kamida afhayeenka ku xiga kulli waa isku madaawana isku hadal ciidan ba ku aaminaysa ma jirto la ogaayay horta heshiiskiina waxa uu yahay la ogaa agooro futada la aragbaariye hasana caana kuma lihid heshiis dambe oo ay ku aaminayaan ma jirto waxaa kaloo intaa ii xiga nin baa xalay ka hadlayay oo lahaa gaalka ay annaka iskale guryaha nooga dhisan jannada gurya kuma leh waxaa ka maqan ninkaas taariikhdiisan la soconay wadanka Soomaaliya ciidda Soomaaliya oo dhan inay siisa ku joogaan reerka miyaadaaro ee aysan kuba lahayn ba aysan sikisan lahayn ama se aysan u dhalanba wadanka taariikhda gobonimo doorkii markii la doonayay ayaa waxa la Soomaali ay tiri nimanka la yaajirahay wixii aan wadanka u dhalan waa inay nooga baxaan markii sida la yiri ayaa yaan u dhalan si korkii waxa la soo baxay reerka daaroodaan intuu soo galay ahaa ayaa la soo baxay wuxuu yiri waa wacalaatiya waxa leeyahay moodina ayadoo alwax lagu sido ay ka soo degay markii aan la soo baxay taariikhdii ay soo galeenna talxiil baa looga qoray gobol bay dhisteen waxay bixiyeen godobtin gabdhay bixiyeen adduunyay bixiyeen siisay ku joogaan presidenti weeye ee sikisan maahan presidenti waxa weeye waa dalka qaxay oo hadda America iyo kuno oo Soomaaliya oo kale way degan yihiin guryaha ka dhistaan ka iibsadeen waa ka shaqaystaan waa presidenti inta waqtigay doonaan ayaana laga soo xaaqaya ayakuna waxay leeyihiin ciidda Soomaaliya oo dhan reerka miyaadaaro tiisu ku yahay naba u dhalanba taariikhdu sana qooni waa yaqdi talxiil siisay ku joogaan intana way ka baxayaan insha Allah taasna waxaan kaga baxay waxaan shay u yiri dalka ayana ka lahayn horeyda waxa loo yiri xaqin iyo dhul ka dhamaada xaqin ka dhamaada ha deegaanka dalka ayo iyo mudug iyo ciidda Soomaaliya anigu ninkii lahaabana adaguna ninkii martida ku ah oo fiisaha ku joogay baa tahay taasna midaas halkaay waxa aan leeyahay dadka xillan jirtay weyna nabadda la soo qaaday in la yiri magaalada way xabadu ka joogtaa waa in dadku ku soo noqdaan taana waxaan ka leeyahay xillan jirtay weyna dadkii ka qaxay waxa ay ka qaxeen intaas oo jeer inta nabad lagu baaqay way ogaadeen waxa ay tahay hadeerna ciidamadii baa soo fadhiyo leefka la isku haya
وقالوا اللي بعيدا عن الرسالة سوما هذا الكلام dadka qaxootiga waxaan ku baraarujinayaa cagaalkaayo waa dhalaysaa ilaa ay ka dhasho qof waliba meesha uu joogay ilaahay baa ku og meel walba qof waliba meesha uu joogo waa inuu joogaa inta ay ka dhalaysa gaalkaayo taana halkaasaan kaga bax cabdiweli ninka la yidhaahaa intuu ka tegey majeerteen ka tegey oo bari ka tegey ayuu annaga kaantari dad ka soo qaato Itoobiya waxaa ka dagaalamaya وعمد وخير بعد كنيا إثيوبيا ومثل خير بوا وعن مغنية كسمايا اللي سويته جيا كسمايا دحدحات ما بنقول كرت وأي عين كثير كسمايا باكد على ما يدعو كاي لو ما نتجي كرو نيكو دلي كنا دبويا لجي نيكو نقول أحد نقول على ما يقال كاي تشوجا وبلغ نقول على ما يا وخير ماشي اللي جرا تبلغ ما بنقول كنا حاسين قال كعينا الله جماعة حدكم وضونا قالكم أنا متأثر وياي عبد الله waxaa jira arin la xiriirta marka laga hadlayo heshiiskii maalintii dhaweeyay la isla soo qaaday labada madaxweyne iyo beesha caalamka oo garwadeen ka ahayd in Puntland ay wali ku adkaysanayso in ay odayaasha dhaqanka ka wada hadlaan arinta gaalkacyo in ay ka wada hadlaan labada maamul goboleed haatan waxa la soo xulay gudiyo loo saarayo xaaladda gaalkacyo iyo xasilooni ku soo dabaalida marka ma isleedahay gudiyadani waa ay guuleysanayaan oo hawshii loo igmado waa ay qaban karaan absolutely ila ma luqato waa absolutely ade waxa weeye waa dowlatus ama waa warantiisi beesha caalamku ليش يتركي بقرطوق بكاهاي إني Puntland جريسينيا ويقوغيه ليش ويقوغيه أمريكا انتو تجين بياي هنكا وحا كتقالما يسميش اللي يراهو شباب يبقى على القاعية كتقالما وحين شيء اللي قبها بيه وأيكو شيكتين خير Puntland وعالمكو وغيه مريشن كدوكيه وغيه وهو يري وحا نسيه information خلطان خير Puntland ويري نغسيه يبقعان وقدان كقلينا إذا كنا عيسك موقع دقيقة ثم هذا الكلام بعد الهيسيسكي ويه وبعد الهيسيسكي مي لقاطي السنة تركي مي نسيحي وبيش عالمكو أي قرطوكا كاهي كاسي كده ومريه وأنا القد أي كغديين وحا عين كاسا انت كدن بيسانا وير بيحايا وحبا يعني يقول دي فانتران بيش عالمكو وحبا كانوا أغنيس وحا أي تحي وحلدن بس هو ويهاب Puntland نبضنا مرحبا نبض جالكايو هورينا وانو الشيء حدنا وان ليه بشرين منكي كده ميرا أبي يدير هذا هدي أن ثلاثة عاد وقربين أقل بيها ولا قاعد أبغى تنتهي عينه بتاعنا هاي أنا جالكايو كل شيء فرز دلوقتي جالكايو بان كل شيء أول كهي هنا هي وبقول يصدق سنة كل شيء أيام كل شيء أباي وبقول سنة كده أيام نينتي كل شيء دجالدي ومرجي وجمالها كل شيء جالكايو كل شيء أنا قاعد كل شيء تدراتني يلا بس سنة كده نك ما أنت شجعنا يا يسوون زيجونا معها نك هي بالله ما أنت شجعنا يا سوون زيجونا يا معها وحاكلوا أنت أولية خير بالله بقال بيكون كمان هذه يصير بل بدل واحد كم قال يا نمله يعني ما تقانا تقال خير بالله هذي عيادهم كلام إلا واحد صوتها وان كلام خبزه مدحلو بقى من تسير استاجي وريالكم يساكوشوا أيام يدي ما يبقى تقال كهدية يسافر متقانا قلب مخاضا نبضة إن هوبيان نال صوتها ورينا نال واحد صوتها ورينا ناس اللي يعدا بلد وين أنت كلا هو ميدي يحي كلا حاجة وارمية سرقوجين دورما بيت لفياسي دورما بيت لفياسي وارمية سرقوجين هوريس وارمية سرقوجين هوبات وارمية سرقوجين عادو وارمية سجلين دوغين وارمية سجدروغين وارمية سقرف اوغين 1948 أيها الديان تيوجدن بيه وهو يدعو كده دع قرب بيكتر عليه كده عشان 1948 بيه ثم ذكر 46 بيه ماشي اللي ياهو ماشي اللي يدين الفلوس خبر وحي هيد ماشي اللي ياهو صدم كده يا اخي خرج 1944 يا اخي ثم ذكر ما حنقول يا اخي لا كويس يقانا ماشي ايه الجنايه ايه وحكي اي لهايه واحد بلاش يكون
guursanayaan kabacdi miyay dhasheen goorbaas dheer la fayeeshay reer galmudug waxaan idin leeyahay ilmaadeerayaa waxa soo jeedinina yaa inay dhammaadeen ceeb laguma sagootiyo reer galmudugow dirsinta haddaad deysaan inta aad degtaan gaalkaayo way iswaayayaan ragga meesha lagu soo aruuray way iswaayayaan wax nabad layaa oo beesha caalamku ay ka samayn kartaa ma jirto nabaddu waxay ka suurtowdaa dadka deegaanka degan ayadeena way diideen reer Puntland waxa ay ka doorteen oo ay ka doorteen dagaal bay ka doorteen wax aan dagaal ahayn waa oo gaalkaayo uu leeyahay ma jirto dadka qaxootiga meelahooda ha joogeen adduunka waxa waa in loo weydiiyaa say u caawiyaan dagaalba weeye meeshaan wax kaloo dabadeedu waa dagaal gaalkaayo waa dagaal labada maamul waa inay colaadan gaalkacyo waxaa la sheegay in lagu soo dhammaynayo magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland oo hadda si ku meel gaar ugu shaqeeyo marka reer Puntland waxay sheegeen ama odayaal hadlay ay sheegeen in arintaasi aan loo baahnayn in xilligan Kismaayo loo aade gaalkacyo lagu dhameeyo adu ma aaminsan tahay in arintan Kismaayo lagu soo dhameeyo absolute hal goolihii nirig xalaala ma dhashalay gaalkacyo ragga ka dagaalamaya waa reer Jubbaland gaalkacyo ragga ka dagaalamaya oo intii dagaal ka dhacay lagu qabtay ama ku dhintay waa reer Jubbaland dhexaad ka noqon kara hal goolihii nirig xalaala ma dhashalay reer Jubbaland waxay ku jiraan dagaalka gaalkacyo ha noqonina munaafiqiin ha noqonina ma jirto wax la yaa magiciisi beesha caalamka waxa og baalkama adduunka oo dhan baa og inay reer Puntland dagaal nabad ay safarin ee dagaal ay rabaan oo ay jabiyeen oo beesha caalamka been u sheegeen oo Mareykan been u sheegeen caalamka oo dhan baa og maxay tahay nabadda laga doonaya warantidu samato waa nin xaalay booli nin hal booli nin xalaala ma dhasho horiida loo jiri nin dagaalka ku jira xaashima ku noqon kara waa maya never mind waxaan tiri waa waxaan dhigay